madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa markii ugu horeysay wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay inuusan marnaba hor istaagi karin rabitaanka shacabka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ee maamulka Khaatumo State isla markaana aan lagu qasbi karin maamulo kale. shacabka Soomaaliyeed haday qaar kamid intay isku yimaadaan geed hoos fariistaan oo ay tashadaan oo ay maxaan ku iraahday tala gaaraan taladaas ay gaareen baa mid xaqiiqada ah mid kor inta looga keeno lagu qasbi karo ma jirto oo hore ayaa looga soo qoostay reer Khaatumo marka hadii ay inta tashadeen ay meel tageen ay heshiiyeen oo ay maamul inay sameystaan ay garteen dawladda Soomaaliya sabab ay ku diidi karto ma jirtaba. arrintaas waxaa dhankiisa si weyn uga xumaaday Faysal Cali Waraabe oo kamid ah qabqablayaasha maamulka la baxay Somaliland. rag xamar ku xidhan ee ilaaniyo sawaaxiliga ee shalay Itoobiya ku dhacayay bilyan iskala siinayo doonaya maanta inay inagu sameystaan ciidamada la sameeynaya inaga iyo xog soo socda kullaa ku soo socda waa ciidan 180 ay reerihiin waa ku bilaabay Udubland waxaan sheegay Xasan Sheekh hataa Khaatumo sheegtay ana Udubland baan sheegi doonaa oo shabeelaha hoose marka ayaa ma ikraafi doona oo dadkii la joogaan oo jirta waxaan leenahay ciidamada laga joojiyo in loo sameeyo Soomaaliya ilaa ay shantooda isku yimaadaan oo dawlad goboleedyadu ay ka yimaadaan ciidamo isku miisaanaysan waa in laga joojiyo lacagta la siinayo lagu suubiyo xamadna waa in laga joojiyo. Korneel Maxamed Cumar Cigaal Tacabir ayaa dhankiisa wuxuu ka hadlay hadalka waalida ee ka soo yeedhay Faysal Cali Waraabe isagoona ugu baaqay beesha uu ka soo jeedo inay xidhaan maadaama uu ku tilmaamay qof aan caadi ahayn. waa nin moogtay anigu ma haysto qof caadi ah markii runta ma haysto qof caadi ah waa yaqaanaa duflaan waa arrin weeye oo ummadda Soomaaliyeed waa taqaanaa marka wallahi ma rabo aan leeyahay ka soo sababtoo ah inta lagu fahmo tiyaara ka soo wada laakiin waxa weeye dadka kale loo baahay dad dadka wanaagsan ka dhashay iyo ka tirsan wala sheeganaya adeero dawada ninka moogtaa tala ka gaaraan sababtoo ninka mar caaya dalka Soomaaliyeed ee uu caaya darad caaya dawladu caaya inta maayo dadka waxay loo caaya انت عارف ما اللي كده صباحيه والميديا مريه marka waxa loo baahay dadka moogtay ninka ka hortagaya inay moogtay qabtaan ila waxa kan de umada maartay ana qaabay jooji waxa loo daahir ma ka waxa maraya Soomaaliya darweey ninka loo dawo ma baahay la taagan iyo flagaadada xumada والميديا مريه yani ismaqlayn marka anigu waxaan lahaa isaga anigu la yaabay inta moogtay إنت قدم بيشوف شيء يا ولد مالي واحد يا قريش